inay ka khatarsan yihiin xoolaha khaaska ah xoolaha dadweynaha xoolaha dawladda xoolaha khasnada dawladda xoolaha mujtamaca xoolaha ummadda in xaq darro lagu qaatay waa ka khatarsan tahay xoolo shakhsi leeyahay inaad qaadato xoolo dad kooban leeyihiin inay qaataan inaad qaadato waa ka khatarsanta maxaa yeelay u fiirsan nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri maradii uu maalintii Khaybar qaatay xaq darrada ku qaatay intaan la qaybinin ayaa naar holcayso korkiisa ku holcayso buu nabigu sallallahu alayhi wasallam ninkii keenay waxa yar shiraaga yarka keenay xaq darrada ku qaatay nabigu wuxuu shiraakun min naar yaa waa naar aad ku holcayso ku guban lahay Soomaaliyeed hayaraysan sababtu wax weeye xoolahan dadweynaha waxa ku tacalluqaya xuquuq aad u fara badan malaayiintaas iyo boqolaalka kun ayaa xuquuq ku leh waa xoolahoodii haddaad shilinka ka bato xaq darro ku ka bato maalinta qiyaamada malaayiinta meeshaad geyn lahayd aad garanaya saas daraadeed baa nabigeenu salawaatu rabbi wa salaam alayhi arrimaha aad uga digi jiray xoolaha caamka in la iska ilaaliyo laga fogaado hatta iska dhaafe dun iyo irbad ninkii ka qaatay maalinta qiyaamada waa keenaya isagoo xambaarsan waxa sugan nabigeena sallallahu alayhi wasallam kama fi sahih al-bukhari nin la yiraahdo ibn lutbiya oo dawladda shaqaalaheeda kamid ah ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam wuxuu u diray inuu zakada ka soo ururiyo dadka sakadii uu soo ururinayo dawladdu u dirtay ayaa dadweynuhu markuu u tago ayaa waxay lahaayeen qaybtana waa zakadii oo nabiga gaarsiiyay qaybtana adiga socda yaan hadiyad kaaga dhignay xoolihii isagoo wadawadu keenay markuu nabiga u keenay buu xoolihii kala qaybiyay wuxuu yiri intana nabiga idinka iska leh waa sakadii iyo sadaqadii intana ana la ii soo hadiyeeyo daana iska leh nabigu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam minbarku fuulay dadku khudba u jeediyay wuxuu ku yiri maxay yihiin shaqaale aanu dirsanayno hawl aanu u dirayno kadibna iimaanaya dhahaya intana idinkaale intana ana la ii soo hadiyay guriga hooyadii aabihii muu fadhiisto oo fiiriyo bal in wax la siiyo oo loo hadiyay macnaha ma fahanteen hadiyadani waxay ku timid kursiga hadiyadani waxay ku timid magaca dawladda hadiyadani waxay ku timid wadiifada iyo shaqada uu dawladda u hayo dawladda dirsatay bilaash lagu ma siinin hadduu guriga hooyadii iyo aabihii iska joogi lahaana koob shaaha looma shubeen xoolahani maxaa keenay kursiga keenay kursigana ayaa iska leh ummadda iska leh hooyadii iyo aabihii baa uga dhintay sidaas daraadeed xoolihii nooca ah nabigu waa ka qaaday salawaatu rabbi wa salaamu alayhi ka tag baa leeyahay meesha fadhiis bal in xoolo lagu siiyo arag yaa wax ku hadiyeynaya miskiin baa tabanaanka taagan saas daraadeed baa nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam hadaaya al-ummal ghulul shaqaalaha dawladda wasiirada madaxweynaha baarlamaanka gudoomiyaasha shaqaalaha dawladda wixii hadiyad loo siiyo waa khayaano buu nabigu yiri salawaatu rabbi wa salaamu alayhi حتى هدية بناك أوجتب صوبتم حيتها هدية وحلوجو كان يوا كرسية هدو كرسية كنا عم قاعد إسكاسو فريستكوب شاه أشوف ميزان أنتوا سن كرسية فولينا وبناك تشوجين شاه لما سينين مالك كرسية فولي به هدية دو كوب اللودين أو لقود ضلضلي يا إسكاله هدية داس كرسية إسكاله ومدة إسكاله شعبك إسكاله كرسية عدي إسكاله با إسكاله إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها أمانة ضد إسكاله شعبك إسكاله أدوك مليد النبي صلى الله عليه وسلم مركز وحوير حديثك الصحيحة نكاسي مركو قابك أولها الله وحوكيري إلهي بان كرنارتين نفتيذك عندي سكو جرتين متكيني كقات حولها نوع عاسا وحكم ذا هيا رتابنات maalinta qiyaamada ayuu keeni doonaa ama la iimaan doonaa asagoo xambaarsan ninkii neef geela qaatay hal ololaysa asagoo dusha ka saarantoo fadeexaysan buu maalinta qiyaamada iimaanaya ninkii neef ariya qaatay riciyaysa iyadoo korka ka saarantay maalinta qiyaamada iimaanaya ninkii lacag iyo xoolo urursaday isagoo sida
oo kartoomadii iyo muxuu ahay dusha ka siduu iimaanaya maalinta qiyaamada adinkoo xambaarsan baad iimaan doontaan markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam gacanta kor u taagay oo uu yiri allahumma hal ballaqtu allahu ma gaarsiiyey xoolaha caamka ah waa halis waana mid maanta la xalaashaday khaasadii baa xalaashaday caamadii baa xalaashaday kuraasta lagu ordayay laaluushka lagu guranayo xoolaha dadweynaha lagu qaadanayo laga taajirayo xageed gali doontaan asagoo miskiin ah oo faqiir ah oo dariiqyada taagtaagan ayuu kursi loo dhiibayaa maalmo kadib bila kadib sanada kadib qusuur buu dhisanaya guryo dheer waa taajir waa hantiile war xagee buu ka keenay xagee xoolahani kaga soo daateen xoolihii dadweynaha la dhacay waxa la yaab leh caamada iska dhaafay khaasada kii wadaad la dhihi jiray kursiga markuu fuulo caamada kama sokeey ya jamaa war yaa xalaaleeyay warisa inaadan dhimanaynin baad rumaysantahay war Zaynul Aabidiin dhimay oo Qadaafi dhimay oo Saddam dhimay oo Ali ibn Salih dhimay oo fulan tag oo jabaabiradii tage oo adiguna waa tagi doontaa kursigaad ku fadhidana waad ka dhaqaaqi doontaa wax alla waxaad ka kasabtay oo dhanna ayagoo taagan baad ka dhaqaaqi doontaa ittaqillaah aakhiradaada u tur qabrigaaga u tur ilaahay baad hor istaagi doontaa u tur dadweynaha xoolaha halabsanaya ee iyaga laftoodu moodaya inay iska banaayeen xoolaha caamka war waa halis waa martac khatiir wakhima ittaqullah xoolahan la iska xalaashaday hantidan la iska xalaashaday masaalixdan la iska xalaashaday wax loo rogmanayo way ilaahay ka baqa oo aakhiradiina ilaashada sallu wa sallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika muhammad وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك يا حي يا قيوم اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب